cudurka virus baa keena viruskana waxaa la yidhahdaa coronavirus intooda badan waa sanadka oo dhan waa iska socotaa especially xilliyada qaboobaha inta badanna waxay keeni jirtay hargab laakiin marka ay samaysan mutation ama ay isbedesho qaabkeedii cudurkeedu wuu kasii daray macnaha cudurkay keenaysa mid wuxuu noqona fudud ama wuxuu noqonahayaa mid aad u xoog badan tusaale ahaan waxaa noogu filan SARS 2002 ilaa 2003 cudurkii China ka dilaacay SARS-ka sila waxaa keenay coronavirus-kan oo mutation sameeyey waxaa kaloo ka mid ah midadiisa SARS-kii loogu yeeray oo geela laga qaaday coronavirus ayaa dadka usoo gudbisay marka asana sidoo kale waxaa weeye wuxuu noqday cudur faafa hadda midkan socda ee China ka dilaacay waxaa weeye waa asna waxaa keenay coronavirus oo bedelatay qaabkeedii virus baa isbedelay nooc kale isu bedelay jiinkiisi baa isbedelay calaamadaha dhan waa wax cudur asaga u gaara ma aha macnaha waa calaamad iska common ah qofku marka wuxuu bilaabaya qandhadaas oo ilaa udhaxaysa 38 ilaa 39 udhaxaysa kabacdina waxaa waaye qufac dhuunta ayaa xanuunaysa waxa ugu daran ee qofka dhibana waxaa waaye markuu qaado pneumoniadaasoo keenta respiratory failure taasuna dadka u dhintaa waa aad buu u faafiya ogyahay halkii qofka waxaa laga yaabaa inuu 3 qof ilaa 4 qof qaadsiiyo waxyaabaha la isku qaadsiiyo waxaa ka mid ah taabashadii qofka diiskiisa qofkii oo kugu qufaca oo meel maaragtay closet meel xiran lasoo galo marka waa hawada maaragtay qufaca intaa lasoo qufaca hawada lagu soo mariyo taasaa lagu kala qaadaa inta badan cudurkan wuxuu dhacaa xilliyada maaragtay inta u dhaxaysa bilaha November ilaa April ayuu dhacaa oo inta badan qabowga meelaha qabowga ayuu ka dhacaa marka waxaa laga yaabaa inaan kaga faa'iidaysano oo soo cudurku ku faafin hawada kullu darta number 1 waa in macnaha xuduudaha horta la kontrolo oo meelaha dadka ka yimaada soo qaad hadda Wuhan oo kale gobolka Hubei province ee China meeshuu ka dilaacay dadka ka yimaada oo kale la xadido macnaha qofka cudurka waday oo la xadido la xakameeyo marka haddii qofka cudurka waday la xakameeyo dee cudurku faafi maayo qofkii la helana isla markaas la karantiilo oo kala soo qaad qof baa ka yimid China Hubei buu ka yimid Hubei province ama Wuhan buu ka yimid 10 ilaa 14 beri wanaad meel ku hayso quarantine haddii uusan cudurkii marka bilaaban oo qandho iyo qufac uusan bilaaban marka waxaa weeye waa sii deynaysaa qofkaas waa caafimaad qabaa qofkii asaga wuxuu ku yimid qandho qaba cudurkii baad ka heshay waa daweynaysaa